kulanti wacan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedina waxa u dooran shirka tubta horumarinta arrimaha bulshada oo Muqdisho ka dhacay wafdi gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Baay isbedel lagu sameeyay amniga guud ee magaalada Kismaayo kadib weerarkii ka dhacay magaaladaas warar dheeraad oo laga helay qaraxyo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb al-shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda weerar ka dhacay isla magaaladaas askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo Muqdisho lagu dilay waan ka dhex bilaabatay Somaliland iyo jabhadda Korneel Caare beesha Saacad oo go'aanada ka soo saartay shirkii ay ku qabatay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyo dawladda Soomaaliya oo wax ka bedel ku sameysay arrimaha xajka intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedina kuwada ugu door koron haddii aad ka mid tahay saaxiibadeenna cusub ee barteen YouTube-ka rukumo oo gambalaalka guji subscribe dheh saaxiibadaada share u dheh like dheh si ay helaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka markaan soo galino bartan YouTube-ka isha wararka markan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan shirka tubta horumarinta arrimaha bulshada ayaa maanta waxaa lagu qabtay Muqdisho رئيس وزراء حكومة حكومة فدرالka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa gudoomiyay shir ay yeesheen guddi hoosaadka golaha wasiirada ee tubta horumarinta arrimaha bulshada shirka oo ay ka qayb galeen wasaaradaha halbeegyada ku leh tubta horumarinta arrimaha bulshada ayaa looga hadlay horumarinta arrimaha bulshada iyo dardargelinta fulinta qorshayaasha wasaaradaha ee u degsanaa in ay ku dhameystiraan sanadkan 2019 wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shirka ku soo bandhigtay warbixin la xiriirta heerka ay soo marayso xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta guud ahaan dalka wasaaradaha qaybta ka ah tubta horumarinta arrimaha bulshada ayaa lagu wargeliyay in la bilaabayo isla xisaabtanka lagu dabagalayo wixii wasaaradaha uga qabsoomay halbeegyada sanadkan ee u qorsheysnaa ay ballan qaadeen fulintooda ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa dhammaan wasaaradaha ku jira tubta faray in ay dardargeliyaan fulinta qorshayaasha u degsanaa in ay sanadkan ku qabtaan ay la saxiixdeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya bilowgii sanadkan 2019 magaalada Baydhabo ee gobolka Baay waxaa gaaray wafdigaas la sheegay inay horkacisay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqo Yaasiin Barmila Beten oo ah ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan tacadiyada galmada ayaa booqasho ku tagay magaaladaas wafdigan ayaa waxaa magaalada Baydhabo ku qaabilay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqo Yaasiin iyo mas'uuliyiinta ka socota qaramada midoobay ayaa inta ay halkaas joogaan waxay u kurgali doonaan heerka ay gaarsiisan tahay tacadiyada haweenka iyagoo madaxda maamulka Koonfur Galbeed kala sheekaysan doona arrimo ku aadan ka hortagga gobodfalada dumarka loo geysto Kismaayo gobolka Jubbada Hoose oo maalmo ka hor weerar culus ay ku qaadeen al-shabaab ayaa waxaa isbedel guud lagu sameeyay amniga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kadib kulan aan caadi ahayn oo magaaladaas ay ku yeesheen madaxda sarsare ee maamulka Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa maanta oo xada shir gudoomiyay kulanka golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose xaaladda guud ee amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ugu horeyn kulanka lagaga hadlay iyadoo la sheegay in xaaladda amnigu hadda ay wanaagsan tahay inkastoo dhowaan weeraro iyo qaraxyo ay ka dhaceen oo mas'uuliyadooda ay sheegatay ururka al-shabaab magaalada Kismaayo gaar ahaan hoteelka Cascasey oo hadda loo yaqaan Madiina ayaa waxaa weerar culus ku qaaday dagaalyahano ka tirsan al-shabaab waxaana ku dhintay 26 ruux halka dhaawacna la sheegay inuu gaaray 56 ruux kuwaas oo qaarkood xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayay magaalada Kismaayo isla markaana la geeyay isbitaallo ku yaala Muqdisho iyo Nairobi golaha wuxuu mahad celiyay dhammaan dadkii u soo tacsiiyay dowlad goboleedka Jubbaland ee xanuunka la qaybsaday waxa kale oo looga hadlay qaabkii loo maareyn lahaa qasaaraha ka dhashay weerarka hadday noqoto burbur hantiyeed iyo dadkii dhaawacmay ee intaba madaxweynaha ayaa magacaabay guddiga taakuleynta dadka wax ku noqday weerarkaas kuwaas oo ka shaqeyn doona sidii loo caawin lahaa dadka dhibaatadu ay gaartay iyo sidii gacan loogu fidin lahaa milkiilaha hotelka Madiina Cascasey oo ah shakhsi naafa ah oo dhaqaalihiisa sida la sheegay u horay dalkiisa qorshaha amniga doorashada ayaa la isku raacay in dowlad goboleedka Jubbaland ay si adag u sugayso ammaanka doorashooyinka iyadoo dhammaan ciidamada ammaanka la geliyay heegan buuxa
golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo jeediyay in wacyigelin la siiyo bulshada la xiriirta sidii ay ciidamada ammaanka uga gacan siin lahaayeen sugidda ammaanka deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Dheeraada ayaa laga helayaa qaraxyo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud iyadoo mas'uuliyadda weeraradaas ay sheegatay ururka Al-Shabaab. Barqanimadii maanta ayaa qarax miino uu ka dhacay maqaaxi shaah laga cabo oo ku taala kasoo horjeedka xarunta Inji oo ay ku shaqeeyaan hay'adaha kala duwan ee maamulka Galmudug sidoo kalena xafiis u ah madaxa xukuumadda Galmudug. qarax ayaa dad goobjoogayaal ah waxay sheegeen inuu ahaa miino maqaayada lagu aasay waxaana ku geeriyooday askari ka tirsan ciidamada booliiska magaalada Dhuusamareeb halka ay ku dhaawacmeen 5 ruux ay ku jirto haweeneyda leh maqaaxida qarax uu ka dhacay. markii uu qarax dhacay ayaa inta badan waxaa warbaahinta qaarkood lagu qoray inuu ahaa qarax ismiidaamin ah hase yeeshee saacado kadib ayaa la ogaaday inuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso isla markaana askariga ku geeriyooday aad looga yaqaano magaalada Dhuusamareeb kana tirsanaa ciidamada booliiska kaas oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Cabdi. waxaa la sheegay in uu ka mid ahaa dhalinyarada magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. waxa uu ahaa arday dhigta fasalka 8aad ee iskuulka Atlantic qaybtiisa Dhuusamareeb sidoo kale wuxuu ka mid ahaa ciidamada booliiska ee Galmudug. Maxamed Cabdi waxaa la sheegay in habeenkii uu wax baran jiray halka maalinkiina uu ahaa askari booliis ah oo shacabka magaalada Dhuusamareeb u adeega. dhinaca kale ciidamada ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay sheegeen inay fashiliyeen qarax miino oo lagu dhex qariyay gasac caana boora ah kaas oo la dhigay meel u dhow saldhigga booliiska degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadaas waxayna sheegeen inay ku dileen askar ka tirsan maamulka Al-Sunna ee ku biiray Galmudug sida hadal ku dhigeen. kalena askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa Muqdisho lagu dilay. dilka askarigan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska Danwadaagaha ee degmada Jir ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in uu dilka ka dambeeyay askari kale oo ka tirsan ciidamada dowladda. dilka askariga ayaa yimid kadib markii askariga oo watay gaari uu isku dayay in uu si xoog ah ku maro bar control oo ciidamada ammaanka ay ku sugnaayeen hase yeeshee askari kale oo goobta ku sugnaa ay wada murmeen taasina waxay keentay in askariga gaariga watay halkaas lagu dilo. askariga dilka geystay ayaa wararka la helayo ay sheegayaan in uu goobta ka baxsaday isla markaana meedka askariga la dilay ay goobta ka qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya. iskuulka dawadaagta ee degmada Jir ee gobolka Banaadir ayaa bilihii la soo dhaafay waxa yeelay control gawaarida lagu celiyo halka qaar kale yaqaana ay u soo gudbaan magaalada Muqdisho inteeda kale. dilka askariga ka tirsan ciidamada dowladda ee lagu geystay degmada Jir ee gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xilli maanta xaafadda suuq Boocle ee degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ay ku dagaalameen ciidamada booliis ah iyo maleeshiya doonayay inay lacag ka qaadaan guri uu dhismo ka socday. dowladda Soomaaliya ayaa wax ka bedel ku sameysay sida ay sheegtay arrimaha xajka. dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay tartanka shirkadaha diyaaradaha ugu jiraan daabulidda xujayada Soomaalida ah. wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta Cismaan Aadan Dhuubow ayaa sheegay in tartankii loogu jiray daabulidda xujayada ee shirkadaha diyaaradaha ay ku guuleysteen 11 shirkadood. Cismaan Aadan Dhuubow wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliya ayaa sheegay in 58 shirkadood ku tartameen daabulidda xujayada Soomaalida ee sanadkan xajinaysa isla markaana ay soo baxeen 11 shirkadood oo la shaqeyn doonta wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaalida sanadkan xajka aadaysa ay dowladda Sacuudiga soo gudbisay ayaa tiradooda lagu sheegay 11,500 ruux. wasiir Cismaan Dhuubow ayaa tilmaamay in wasaaradda diinta iyo awqaafta ay kormeer joogto ah ku sameyn doonto shirkadaha ku guuleystay tartanka isla markaana la socon doonto sidii ay ugu adeegayaan xujayada Soomaaliyeed. kulanka dhex maray wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasiirada diinta iyo awqaafta ee dowlad goboleedka iyo madaxda shirkadaha iyo diyaaradaha ayaa looga arinsaday sidii xujayada u heli lahaayeen adeegyo ay u baahan yihiin. ugu dambeyntiina waan ayaa la sheegay in laga dhex bilaabay Somaliland iyo jabhadda Korneel Caare. warar la helayo oo laga helayo Sanaag ayaa waxay sheegayaan in guddi ka baxay magaalada Ceergaabo uu waan ka dhex wado maamulka Somaliland iyo jabhadda Korneel Caare oo horey uga mid ahaa ciidamada Somaliland. ciidamo uu wato Korneel Caare ayaa dhawaan degay buuraha Kulmiyo oo ku yaala duleedka magaalada Ceergaabo kadib dagaal ka dhacay halkaas waxaana la sheegay in waanta ay wadaan guddi u badan dadka ku heeb ah Korneel Caare
odayaal iyo waxgarad ka mid ah dadka magaalada Ceergaabo ayaa guddigaas ka mid ah sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah waxgaradka magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. wararka ayaa waxay sheegayaan in guddiga dhexdhexaadinta Cornel Caare uu kulan uga socdo buuraha Kulmiye isla markaana la filayo in xubno ka socdo Somaliland ay wadahadalaas ku biiraan. warar soo baxaya ayaa sheegaya in guddiga ay Cornel Caare ka dalbadeen in muddo 4 cisho gudahood uu hubka ku dhigo si uusan uga dhicin gobolka Sanaag dagaal dambe oo u dhaxeeya Somaliland iyo ciidamada uu horkacayo Cornel Caare. ciidamada uu hogaamiyo Cornel Caare iyo kuwa ka tirsan Somaliland ayaa dhowr jeer ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag, waxaana Cornelka uu dhowr jeer ku hanjabay in uu weerari doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. warkii oo idinkaga imaanayay warbaahinta isha wararka daawadayaal waa naga intaa.